وحو نبينا أورنجر عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. دعاء نبيه أقري عليه الصلاة والسلام التحيات كودن بيه marka uu sii gabagabeynayo intaanu salaamo naqsan raaliyaada macnaheedu waxa weeyaan allahumma allahayow biilmika alghayb maadaama aad cilmi u leedahay wixii qarsoon maadaama aad cilmi u leedahay wixii ghaybahee qarsoon wa qudratika maadaama aad awood u leedahay cala alkhalqi makhluuqaadka iyo intaad abuurtay oo dhan hadday awooddaada ku dhex jiraan ood awood u leedahay labadaas sababoodba waxaan ilaahu kugu baryayaa axyinii allahayow inoole maa calimta alxayaata khayran lii intaad ii og tahay ilaan wixii qarsoonee qayba adigaa oge axyinii inoole rabbigayow maa calimta alxayaata khayran lii inta aad ii og tahay noloshu inay khayr ii leedahay وتوفني الله يو إوفسو إدل إذا علمت هداد أكتها واد أكتها الوفاة إن عندنتا خيرا لي إن يجيردو إيغا خير بدنتهي نولوشا هداد تاي أكتها إن إله إنت عني دباتي معصية مشاكل أنا كل عين إله يو إيغا الرئيسي اللهم الله يو إني أسألك إله يو حنك بريا خشيتك إن أنكا عبصده في الغيب مغنانشو إيا أرق لآن والشهادة إيا أرقبا الله يو إيادون ددلتشوغ إيادون كليدا ياهي لبدا حالة دودبا إله يو إنان عبسدا دا آدقو أرزاق دان ربا وأسألك ربي وحانكو بريا كلمة الحق إريق حق إنادي وافتشسو في الرضا مركان فرحسنهي والغضب إيا مركان عرونا يبا dadka qaar baa markay cadhoodaan wax allaaliya waxay doonaan iskaga hadla oo aan u miidaandayaynin diiwaanka loo qorayo ee hadhow lagula xisaabtamayo ilaahay baa markaa nafta inuu kuu xasiliyo baad baryaysaa wa as'aluka ilaaha waxaan ku baryayaa kalimata alxaqi weedha xaqa inaad i waafajiso fi ridaa markaan faraxsanahayn raalli ahay walghadab iyo markaan cadhoonayo wa as'aluka waxaan ku baryayaa alqasda inaan sida dhexdhexaadka ahee toosan aan waafaqo fil ghinaa markaan hodan ahay iyo walfaqri iyo markaan baahanahay dadka qaar baa markay dhergaan ee ilaahay ladan ka dhigo macaasida iyo xumaantu ay u sahlanaataa dadka qaar baa markay faqiir noqdaan tuugada iyo khiyaamada iyo isdhaafdhaafku ay shaqo u noqotaa marka labada xaaladoodba inaan dhexdhexaadka sidaad raalli ka tahay aan ku sugnaado ilaahayow taasaan kaa baryayaa wa as'aluka rabbow waxaan ku weydiisanayaa naciiman nicmo oo laa yanfadu aan dhammaanayn wa as'aluka waxaan ku baryayaa qurata caynin indhahayga ku doogsigooda laa tanqatic marnaba aan iga kala go-ayn indha ku doogsi joogto ah oo mar walba aragtidayda iyo indhahaygu waxay ku farxaan inaad ilaahow i tusto ayaan kaa baryayaa wa as'aluka alridaa ilaahow inaan ku qanco bacda alqadaa wixii aad ii qadartay iyo qadahaagu markuu dhaco wixii ii soo gaadhay inaan raalli ku noqdana ilaahow taana i karsii wa as'aluka
waxaan rabbiyow ku baryayaa barda alcayshi nolol qabowgeed bacda almowti geeri dabadeed. allahayow tan waa laga tegayaa, adduunkan waa laga hoyanayaa, daarta dambe markaan tagana ilaahow nolol qabow oo aan cadaab lahayn baan ku weydiisanayaa. wa as'aluka waxaan ku baryayaa allow ladata annadari inaan ku raaxaysto aragtidaada ilaa wajhika wejigaaga haybadda leh inaad i tusto maalinka aakhiro. washawqa waxaan ku baryayaa inaan u boholiyooboon jeclaado ilaa liqaa'ika la kulankaaga. waxaa taa laga wadaa marka nafta qiriqiir la geliye malakulmowdka uu nafta qaadayo, dadka qaarkood waa ahlulmacaasi, markay arkaan halkay u socdaan iyo cadaabka way kahdaan inay ilaahay la kulmaan. dadka qaarkoodna marka malakulmowdka uu nafta ka qaadaya qarqarada timaado waxaa ilaahay tusaa nicmada iyo wanaagga uu u socdo, qofku kolkaasuu raalli ku noqdaa in nafta laga qaado. marka ilaahay waxaan ka baryayaa waa inaad tidhaahdo wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa rabbiyow ladata annadari inaan ku raaxaysto aragtida ilaa wajhika wejigaaga, washawqa inaan u xiisoodo ilaa liqaa'ika la kulankaaga fii gayri daraa'a mudiratin sabab idhibtay oo dhibaato ah darteed ilaahayow inaan kula kulmayay i jeclaysiinin. marka rafaadka adduunyadu igu bato ee dhibaatadu igu badato inaan markaa tamaniyo yaa nafta kaa qaada, ilaahu taa kaama baryayo. walaa fitnatin mudilla marka imtixaano dadku ay ku dhacayaan oy ku habaabayaan oy ku lumayaan u yimaadana ilaahu taa sababteeda, ilaahu fitankii way igu bateene nafta iga qaad, sababtaana ilaahow yay keenin inaan la kulankaaga aan jeclaado. ee ilaahow anigoon wax fitna aan la kulmin, ilaahayow dhibaato i jeclaysiisa geerida anigoon la kulmin, ilaahayow nafta iga qaad oo camalkayga saalixa ilaahow ii kordhi si aan u jeclaado inaan kula kulmo. allaahuma allahayow zayinnaa na qurxi biziinati aliimaan, iimaanku quruxda uu leeyahay ilaahu nagu qurxi. wajcalnaa ilaahu naga yeel hudaatan qowm hanuunsan oo muhtadiina dadkana sabab u noqda inay hanuunshaan.